Gabaray timaha ma kuu bixi waayeen sidoo kale wiilow bidaar ma ku gashay maanta waxaan ku wadaa sirta hindida ay timaha ku dheeraystaan geed talaal gurigaaga ma ku yaala haa wuu ku yaalaa laakiin ma taqaanid faa'iidadiisa soo qaada digsi weyn kadibna ku shub saliidda ay haysatid isticmaal kadib waxaa ku shubtaa murihii geed talaalka iyo sidoo kale caleenta waxaa sugaysaa inta ay si fiican uga karkarto ama uga shiilmato yuuna kaa guban 20 daqiiqo kadib hadda waa diyaar waa laga dejinayaa si fiican bay u karkarto u shiilmatay hadda waa kana saliidii iyo waxaa la kala bixinayaa muraha geedka iyo sidoo kale caleenta si fiican ayaa loo miiray sadii kale qashin hadduu kaa leeyahay tinta ayay ku dhagaysaa hadhowtina lagama bixin karo gabdhaha si fiican ay u yaqaanaan marka hadda waa diyaar saliid waa ujeedaan saliidda markay qabowdo waxaa lagu shubayaa caag sidoo kaleeto caaga haddii ayadoo kulul ah ku shubtid caaga ayaa kaa jabaya waqti si ha kuu qabowdo sidoo kale uma baahnid inaad talaajada gelisid ama meel qabooba dhigtid banaanka ayaa dhiganaysaa maalin kastana waa marsanaysa tinta ay xariir kaaga dhigto sidoo kale wiilasha timaha ka biibtay oo bidaarta ay gashana aad ayay u anfacaysaa faa'iidada meel dheer kaama jirto gurigaaga dhexdiisa ayay kuu taalaa dad badan ayaa waxay leeyihiin see ku aamini karnaa saliidan in ay tahay saliid aada u fiican waxaa ku aamini kartaan qof dhan oo nool timihiisa ayaa lagu tijaabinayaa soo marka adi timahaaga qofkaas kama duwano timahaas qofka wuu ku faa'iido waxa uuna kuu sheegay in saliidan aada u faa'iido badan tahay marka adi maxaa sugaysaa sameyso annaga Soomaali haddii aan nahay faa'iidada meeshay naga jirta maba naqaano waxaan jecelnahay saliida caagada lagu soo shubay oo dukaamanka yaallo inaan isticmaalno marka hadda kadib saliid dukaan taala iska iloow gurigaaga ku sameyso haddii uu geed kuu baxayo dad badan oo geed u bixin ayaa jiraan oo maanta isweydiinaya talow halkee ka keeni doontaa geedka caleentiisa iyo murihiisa marka hadda waxaa la sameynayaa saliiddii waa ay qabowday caagadii ayaa lagu shubay kaala arag lagama sheekay karo qoftan gabadheeda ayay u waceysaa si dadka loo tusiyo saliidan inay tahay saliid caalami ah aan laga sheekeyn karinin gabadhii ayaa loo marinayaa gabadhan timaha dheerdheer u jeedaan wax kale looma mariyo saliidan bes ayaa loo mariyaa sidoo kale hooyada laftirkeeda ayaa marsato gabdhaheedu dhan ayay u marisaa ay qoftan kastoo ciro ayay leedahay cirada laftirkeeda dawo ayay u tahay saliidan u jeedaan marka hadda waa la marinayaa lafta ama salka hoose saliida lagu shubayaa kaala arag si qurux badan ay kusoo baxday